السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا قالي كحرن جرانك نعيم بات سود وهذا ريكل إلا ما شاء الله ولا ليال سود وهذا واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا قالي يا كحرن جرانك نعيم بات يسوع مالوين ما شاء الله. سلام يا قبيلنا هان haddana aan ku dhahay laagta iyo sheerta iyo commentiga iyo subscribe-ka ka siiya ma fahanteen yaa gambaleelka iska taabta le subscribe marka taabisin hadal gambaleelka taabo si aad wax walba ula socotiin. waxaan kaga sheekeynayaa qiso cajiib oo cajiib ah ku yiri hadda waa cajiib qisadan oo ku saabsan reer faqiir oo masaakiin ah anaga dhan baa faqiir iska ah الحمد لله كذا لحد قبته فقير متيدي سلا فيريو لكن فقير كل شيء جاي وهمتي ذا وحلقة الله مركرير كان إن أبوه وحوها قدار له دكان أو قدار أيولها قدار ميس أيولها قدارته أيو قد جدًا جري سوق وعاد جري مركمان مالها كميدا مركا أساق هبينكي أيو سوه إذا قلبكي هذا مقربة عمل وحي صهر مارت قدارته هي وحاس وسوق الجرير كبعض ترتيب بعض وكين جري بس مركا قلبها كميدا أيا قاري جوكسي odagii waxaan ku dhahay shil ayuu galay gaarigii intuu ku dhuftay ninkii ayuu ka cararay bacda halkaas oo kale ku daadatay ninka halkaas uu ku faniinay jug xoog badan soo gaartay odagii waa la qaaday ninka wuu cararay dadka jidka maraayay iyo gaari kale ku soo leexday waa la qaaday isbitaalka la geeyay isbitaalka markii la geeyay reerkii waa dad is yaqaanaan odagii yaqaan oo gaariga jugsiiyay baa u tageen waxay dheen odagii waa sakaraado isbitaalkaas u yaalaa waa kaasaa bacdaan asagaa watay odagii adiga tii allah u timid waa uu dhintay markuu dhintay reerkii murugo ayaa soo wajahday calaashaan asagaa wuxuu ka difaaci jiray dhanka shaqada iyo nolol maalmeedkiisa iyo qudaarta iyo wax walba u keeni jiray ma fahanteen reer iska saboolana way ahaayeen reerkii sidai u murugeysnaayeen baa wiilkii curadka oo weynaa baa wuxuu yiri anaa hawaan gadaayo miiska anaa gadaa anaa iskuulka ka haray iskuulkii buu ka haray wiilkii baa meesha gadi jiray siduu u gadgadaayay wiilkii waxaa ku dhacay xanuun ku dhacay oo lafaha iyo ka galay maaragtay dhiig ka galay wiilkii wuu sakaraaday tabcaan ayuu noqday isbitaala la geeyay isbitaalka marka la geeyay wax lagu daaweeyo mala wiilkii reerkii marka maamada waxay ku fikirtay gurigeeda inay beeciso ee gadaan guriga ayagaas kala haayeen waxay u tagtay shirkadda beecisa oo micnaha oo baayacda oo maaragtay guryaha gada ayay u geysay waxay tiri waxaan rabaa gurigan in la ii gado waxaa lagu yiri bil ayaad sugaysaa nin oo u dhaxeeyay dalaala ayaa ku yiri reerka ma sugi karaan wiil baa aad uga xanuunsan oo tabcaan ah walba maamadu waxay tiri deyn isiisiiya haaf isiiya inta bisha laga gaaray hadhow haafka kale isiiya tiri waayahay baa la yiri ila wiil baa tabcaaniga ah marka reerka waxay deganaayeen tuulo oo adiga iska maaragtay baadiyana ahayn laakiin tuulo ah bas oo dhul weyn ku yaalo oo adiga magaalada cabaar u jirto ee ku taala adiga marka wiilkii yaraa oo 17 jirka asaga kaas midka ka yar 17 jir waaye kii yaa marka uu baxay wiilka lacagta lagu soo dhiibayaa dhahay kii yaraa lacagta soo qaaday haafka ahaa lacagta markuu soo qaaday intuu wadada ku soo jiray cabaarko adiga mugdiya noqotay wuxuu isiri ama tuuga lacagta ka dhacdaa laamigii yimid wuxuu ku yiri walaalow nin taksiilaa oo arkay adeero waxaan rabaa inaad magaalada ka baxdeeda xoogaa aan deganahay inaad qaadido yiri markaas wuxuu ku yiri taksiga dad badan ayaa micnaha hadda soo raadisid waa in wada qaadayaan qasaara igu jirto markaas wuxuu yiri anaa lacagtooda baxsanayee adigu iqaad inta qofood waaye wiilka lacag la fakanaya soo maaha oo reerku u wadaa wiilka markuu lacagtii waa iska miskiin waana cunug yare
odagii dhexda sii socday intay sii socdayna sheekaysteen inuu aabiis dhintuu uga sheekeeyey way iswarwareysteen ilaa adigu cunugii xanuunsanaa walaalkiisu uga sheekeeyey inuu lacag siduu haddana u sheegay oo lacag wado odaga markuu lacagta qalow oo lacagta uu maqlay wuxuu isiriyaa waana wiil yare lacagtana ka dhici kartaa markay ada dhex sii maraayaan oo meel cidlo la maraayo ayuu gaariga joojiyey wiilkuu yaabay soo dhow yiri markuu soo degtay gaarigii wuu fiiri maxaa dhacay uu yiri gaariga halaysan uu yiri cunugii isagoo sii jeeda oo meesha iska taagan u malayn gaari la sameynaayo buu bahal tooreey wuxuu kala soo baxay tagsilo waa taqaanaayo baakad ibalaaya wataan dhac tagsigii wuxuu kala soo baxay mindi cunugii uu dardaray cunugii markuu meesha ku dhacay oo nuuxsi uu ka waayay ayuu lacagta ka qaatay lacagta markuu ka qaatay magaaladu dib ugu laabtay dib markuu ugu laabtay ayuu wuxuu is yiri marka may dib markuu ugu laabtay magaaladiisa meesha boosjijidiisu iska fariistay dad oo wuxuu arkay rabo tuulada meesha wiilka uu degan yahay agteeda uu soo qaaday markuu soo qaaday meesha markii la maraayo cunugii waa suuxsan yahay markuu wuxuu is yiri may ma suuxsan istaaqfurula cunugii oo nuuxsanaayo ayuu arkay markuu kasoo degay wuu soo baxay dadka ayagoo la yaabana oo fiirinaya ninkan muxuu sameynaya ma inuu soo kaadinaa inuu meelaha micnaha u baxay adi wiilkii uu soo fiirinaya ilaa meeshuu ku dilay uu ogyahay mugta lacagta oga qaatay wiilkii oo nuuxsanaa markaas oo weli ma ii nooshahay wuu orday dhagax weyn buu soo qaaday wuxuu rabaa inuu madaxa uga dhufto ileen waxaa ku dhex jirto oo micnaha hoosteeda ku jirtay abeeso markuu dhagaxa saan usoo qaaday abeesadii ha soo booday gacanta ha ka qaninto suntiyaa ku faaftay wuu cabaaday markuu cabaaday meeshuu ku dhacay dadka gaariga uga soo tegay oo tagsiga oo saarnaayeen cabaad kusoo leexdeen bismillah maxaa dhaca waa soo kala carareen war maxaa in ku kala dhaca abeeso weyn baa cuntay haddana markay saan dheen wiil yaroo meeshaan jiif oo qarracleenayo wiilka yaraa iyo odagii waa isla qaaday isla hal gaari la saaray isbitaalka la dhigay magaalada isbitaalka markii la geeyey odagii waa dhintay wiilkii meesha lagu daaway markuu fiicnaaday maxaa kugu dhacay baa la yiri qisadii uga sheekeeyay wuxuu yiri wiil walaalkay jirada aabay waa dhintay adila taariikhda markuu kasoo sheekeeyay wuxuu yiri ninkan shalay ayuu meesha maaragtay habeenii maalin baa meesha jiifay shalay doole ayuu isoo qaaday yiri markuu isoo qaaday ayuu waxaan uga sheekeeyay lacag baan waday oo haaf ah oo micnaha in gurigeenan bicgeene adi qisadii oo wuxuu uga sheekeeyay reerkoodii iyo sababta uu lacagtan kusoo qaaday ayuu ka sheekeeyay wiilkan yarka ah markuu ka sheekeeyay marka odagaa wuxuu yiri markii aan dhahay lacag baan sidaa oo reerkeena aan u rabaa oo saas iyo hadaladii iga maqlay ayuu gaariga joojiyey markuu joojiyey waxaan dhahay gaariga maxaa ku dhaca wuu halaabay yiri ana halkaas camal anuu iska taagan oona filaynin buu bahal toorey ah wuxuu ka soo baxday yiri tagsigi tooreydii markuu soo qabsaday ayuu i dardaray yiri dalaq igu sii meeshaan ku dhacay yiri meesha markaa ku dhacay lacagtii aan waday ayuu iga qaatay yiri markuu iga qaatayna gaarigiisu iska koray ani wuxuu ii mooday inaan dhintay ayuu ii malay yiri oo markaas iyada ah ma nuuxnuuxsanayno dhahay bes inaan dhinta asagoo ii maleeyo ayuu ila shaydaan baa wuxuu sheegay odagaani iimaankii baa ka tegay xoolo islaameed buu rabaa cunuga yarka inuu ku qalay ilaahay baa badbaadi doonay wiilka yaraa meesha u jiifay isla marka labaadkii uu soo noqday ayaa odagaan abeesadii ku dhigtay oo dhagaxa ayuu damcay yiri intuu soo qaaday weli ma nooshahay yiri waa maqla war weli ma ii nooshahay yiri no dhagaxii markuu doontay ayaa abeesada cuntay yiri saas ayaa abeesadaas ilaahay igaga celiyay maahana inuu madax igaga bariiqiyo rabay oo dhagaxa iga dhufto oo saas aan ku dhinto reerkeeniina way iga walwalaan waayo habeenii maalin ayaan ka soo maqnaa yiri marka ilaahay baa meel wax ka wada bal arag wiilka yarka intuu xoolihiisii ka dhacay weligaa sir ha u sheeganin tagsila kheyr mal qaarkood may fiican yihiin laakiin sirahaaga sideeda banaanba dad maba loo sheegta hadda bal odagaas arag weyn waayeelka ah
wiilkan yarkaa xageed u socotay xageed degan tihiin suu usii wareysana cunugaana waa iska yaryahay wuu maaragtay sirtiisa dhan u sheegay anaga saan waa kada waa kada waa kada waa kada ilaa odaga shaydaan inta qaaday iimaanka ka tegay yaa waxaa la dhahay yaa god qayaan ha qodin ku dhici doontida ilaahay baa garan wiilkii inuu dhintuu mooday laakiin yaa meesha ku dhintay asagii abeesana cuntay ilaahay abeesada soo diray madaxuu rabay inuu bariiqiyo dhagax hoostiisii abeesada ka soo baxday marka waa qiso cajiiba nafsi waaye yaa xoolo islaameed oo haddana oo masaakiin ah ayuu rabay inuu qaato odagaas iimaankii baa ka tegay marka sidiina banaanba sirahiina haba u sheeganiba qof sirtiina weligaa u sheega waayo qof aad aamintay oo sirtaadana u sheegatay oo kaasaa wiilka yarkaasuu u galay ilaahay baa badbaadiyey wiilka sidii yaa cid reerkii loogu geeyey reerkii markii loo geeyey bas odaygii shirkadda oo mas-uulka ka ahaa baa waxay maqleen in reerkan maaragta dhibaato ku dhacday oo wixii oo dhan looga sheekeeyey marka odaygii wuxuu yidhi lacagtaasna cafisa inii tahay gurigiinana idinkaa iska leh manahee laynka beecinaayo qaata gurigiina lacagtaasna cafisa inii tahay dayn ma ahan marka wiilashii gabdhihii sidii ayay waxbarasho ku galeen sidii ayay dad taajiriina oo maaragta shaqaysto oo maasha allah oo jaamicii ku noqdeen waa qiso cajiib ah halkaas ayay ku eg tahay